kulanti wanaagsan halkan warqaad tube waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya kaga heyno kooda ugu waaweyn dawladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dilka Igraan Tahliil xilli su'aalo badan ay dul hooganayaan qaabka al-shabaab ay ugu gacan gashay musharaxiinta mucaaradka dawladda federaalka oo si weyn uga falceliyay wax aan la aqbali karin ku tilmaamay warka ka soo baxay hay'adda NISA ee lagu shaaciyay dilka marxuumad Igraan Tahliil haddaba maxay tahay tilaabada mucaaradku ay qaadeen ra'iisul wasaare Roble loo soo jeediyay inuu degdeg xilka uga qaado taliyaha awoodda badan ee NISA Fahad Yaasiin miyuu arrintan ku dhiiran karaa mudane Roble hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya oo digniin culus ka soo saaray dhulka dawladda fariin adagna u diray hay'adaha dawladda haddaba miyay tilaabadan hanti dhowrku u qaaday si horin kartaa xiisadda ka dhaxaysa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Farmaajo iyo imaaraadka carabta oo ku dhaqaaqay tilaabo dhaawac ku ah qarannimada Soomaaliya xilli Somaliland ay ugu yeertay dawlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana jimco taariikhdu ay ku beegan tahay 3 bisha 9aad sanada 2021 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya asxaabtaada kuna share gareynaya baraha bulshada waad ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad nagu raabto aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqaad tube xilli maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar kala duwan oo ku aadan kiiska Igraan Tahliil oo la waayay 26 Juun sanadkan 2021 gudihiisa ayaa waxa hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ay shaacisay in gabadhaas ay u gacan gashay al-shabaab isla markaasina ay dileen muddo 2 bilood kadib oo warkeeda la weysanayna ka aamusnaayeen taliska NISA iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo lagu baahiyay warbaahinta dawladda si gooni ah TV-ga qaranka iyo raadiyo Muqdisho ayaa arrimahaasi looga hadlay waxa warkan lagu yiri Igraan Tahliil Faarax oo ahayd xubin ka tirsan hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaa warkeeda la weysanaa ilaa 26 bishii 6aad 2021 hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed dabagal ay samaysay oo muddo socday kadib ayaa lagu helay warbixin muujinaysa inay u gacan gashay argagixisada arxanlaawayaasha ee al-shabaab kadibna ay dileen hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ayaa galbaariska kiiska Igraan Tahliil oo faahfaahsan ku wareejisay hay'adaha ay qusayso waxaa sidoo kale hay'adda sirdoonka qaranku ay la wadaagtay warbixinta qoyskeeda hay'adda nabadgelyada ayaa uga tacsiyeysay qoyska ehelada iyo dhammaan xubnaha hay'adda falka foosha xun ee al-shabaab ay ku dileen Igraan Tahliil kadib markii uu soo baxay warkan ku aadan dilka Igraan Tahliil ay soo bandhigtay hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA waxaa soo baxay oo dul hooganaya su'aalo badan oo jawaab u baahan hooyada dhashay Igraan Tahliil oo la hadashay warbaahinta ugu horeyn waxay beenisay in ay dileen gabadheeda al-shabaab iyadoona sheegtay in xitaa al-shabaab ay ka soo raadiyeen balse ay ka soo waayeen waxaana mar kale ay ku celisay inay ku maqan tahay gacanta hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxaa hay'adda nabadgelyadu warkeeda ay ku shaacisay dilka gabadhan ay ku sheegtay in xogta dilka gabadha ay la wadaagtay ehelada qoyska hase yeeshee hooyada gabadhan dhashay oo la hadashay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa cadaysay in dad eheladeeda ay u soo sheegeen xogtan in lagu soo daabacay warbaahinta qaranka balse aysan jirin cid si goona ula soo socodsiisay su'aalaha dul hooganaya kiiska dilka Igraan Tahliil waxay yihiin 4 su'aalood oo jawaab u baahan su'aasha koobaad waxay tahay hay'adda nabadgelyada dabcan xogta iyo warka ay ka hadlayso ee hadda ay faafisay waa ay sii haysay maxay tahay sababta 2 bilood loogu seeto dheereynayay ee ay uga aamusneed u sheegi weysay in Igraan ay dileen al-shabaab waa su'aasha koobaad su'aasha labaad waxay tahay caadiyan al-shabaab waa ay sheegtaan qofkii iyagu ay dilaan waliba Igraan Tahliil waa qof miisaankeedu uu culus yahay maadaama ay ka tirsaneed saraakiisha sarsare hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed marka ma jirta sabab ay al-shabaab inta dilaan gabadhaas haddana uga aamusi lahaayeen su'aasha saddexaad waxay tahay in Igraan al-shabaab ay qafaasheen kadibna ay dileen waa markii koobaad oo laga maqlay il aan ahayn midda dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo ay hadlaanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo barnaamij ka samaysay in yar kadib barnaamijkaasina waxaa soo baxay sheegidda hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ah in gabadhaasi al-shabaab ay dileen haddaba sidee bay ku dhacday su'aasha afraad waxay tahay hooyo Qaali Maxamuud oo ah hooyada dhashay Allah u naxariistay Igraan Tahliil waxay si cad u sheegtay in gabadha guriga ay ka soo kaxayeen
howlwadeenno ka tirsan hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ay taqaano weliba meesha ay deganeed waa guri aan ka baxsanayn xayndaabka aadka loo ilaaliyo hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. afartaasi su'aalood waa kuwa dul hoganaya dilka Ikraan Tahliil iyo xogta ay soo bandhigtay dowladda federaalka Soomaaliya ku aadan in gabadhaasi ka tirsaneed saraakiisha sarsare ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay u gacan gashay al-shabaab kadibna ay qaarijiyeen. dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dilka Ikraan Tahliil waxaana si isku mid ay u sheegeen in xogtan ay tahay mid lagu saantiranayo hase yeeshee Ikraan ay ku maqan tahay gacanta hay-adda nabad sugidda. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxaan maangal ahayn ku tilmaamay in Ikraan Tahliil oo in ka badan 2 bilood la weysanay hay-adda nisa maanta al-shabaab u saariso. al-shabaab dadila ama qarxiya waa la arkay laakiin horey uma dhicin in al-shabaab saraakiil nabad sugid ay ka dhex qafaashaan xarumaha dowladda. waxaase yaab leh in nisa aysan ka warqabin afduubka Ikraan laakiin ay dilkeeda og tahay. tani waxay caddayn u tahay wada shaqaynta hay-adda nabad sugidda iyo al-shabaab ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si toos ah weerar ugu qaaday hay-adda nabad sugidda. waxa uu sheegay in arrintan ay digniin culus u tahay inaysan jirin cid ka badqabta in ay gacanta al-shabaab gasho amaba xarumaha dowladda loogu yimaado. waxaana ra-iisul wasaare Roble uu soo jeediyey in sida ugu dhaqsiyaha badan xilka uga qaado taliyaha awoodda badan ee hay-adda nisa maadaama uu mas-uuliyadda dalka gaar ahaan amniga uu mas-uul ka yahay. caawa indhaha Soomaaliya oo dhan waxay ku jeedaan tillaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. waxaan u soo jeedinayaa kow in uu la fariisto jawaab u qalantana siiyo waalidka Ikraan Tahliil. 2 in uu badbaadiyo kalsoonida iyo amniga lagu qabo hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. 3 si taasi ay u dhacdo waa in xilka uu ka qaado taliyaha nabad sugidda lana baaro kaalinta uu arrintan ku lahaa lana xanibo dhaqaalihiisa inta uu baaritaan ku socdo. 4 in baaritaanka uu sameeyo guddi khuburo ah oo si toosa xafiiska ra-iisul wasaaraha hoostaga si maalinle ahna uga warbixiya Allah u naxariistay Ikraan Tahliil kiiskeeda ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. dhankiisa waxaa isla kiiskan ka hadlay xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah mudanayaasha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya horeyna u sheegay in Ikraan Tahliil lagu qaarijiyay xarunta hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. xildhibaankan qoraal uu soo saaray ayuu ku yidhi al-shabaabka Fahad Yaasiin uu sheegay inay dilaan Ikraan Tahliil waa isaga dilay duugayna Ikraan Tahliil. ehelada Ikraan waxaan kula talinayaa inay furtaan gal dacwadeed Fahad Yaasiin ka dhan ah ayuu yidhi Mahad Salaad oo jawaab ka bixiyey warka ka soo baxay hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed nisa. waxaa Mahad Salaad uu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya inuu xilka ka qaado Fahad Yaasiin si dacwad loogu soo ogo maxkamadna loo soo taago. si kastaba kiiska Ikraan Tahliil ayaa wuxuu yahay mid waji cusub yeeshay kadib markii dowladda federaalku ay sheegtay in gabadhaasi ay u gacan gashay al-shabaab isla markaasina ay qaarijiyeen. waxaa sidoo kale arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo horey xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada muxaafadka ah sida weyn ugu xiran filla Soomaaliya ahna xildhibaanka ku matala Ikraan Tahliil baarlamaanka waqtigiisu uu dhamaaday uu sheegay in looga yeeray xarumaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed isla markaasina uu daawaday kaamirooyinka qarsoodida wax ku duuba muuqaal ay qabteen oo ku aadanaa Ikraan Tahliil marka laga soo qaadayo gurigeeda. waxaa xilligaasi Daahir Amiin Jeeso uu sheegay in Ikraan Tahliil gaariga ka soo qaaday gurigeeda uu ahaa gaari ay leedahay hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed uuna waday shakhsi ka tirsan hay-adda nabad sugidda. waxaana isqaadan la muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka qarsoonida wax ku duuba oo muujinaya in gacanta nisa looga soo qaaday gurigeeda gabadhaasi haddana isla nisa ay baahisay in ay u gacan gashay al-shabaab sidaasina ay ku dileen. warqaad tiyub ay daawanaysaan. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa soo saaray amar uu ku wargelinayo hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya in muddo bil ah oo ku eeg 2 bisha 10aad 2021 ay ku soo diiwaan geliyaan dhammaan heshiisyada la xiriira dhulka iyo guryaha ay galeen. hantidhowrka guud ee qaranka oo ujeedadiisu ay tahay diiwaan gelinta heshiisyada hantida la kireeyay ee dhulka iyo guryaha dowladda ayaa waxaa looga hortegayaa wax isdabamarin iyo in si gaar ah looga faa'iideysto heshiisyadaasi.
xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waxaa mas-uul uu ka yahay ilaalinta hantida ummadda iyo u hoggaansanaanta sharciga si loo xaqiijiyo in hay-adaha dowladda ay hantida ummadda u maamulaan sida ugu wanaagsan ugu beeqaansan uguna waxtarka fiican ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska hantidhowrka. waxaa intaasi qoraalka lagu sii daray xafiiska oo ka taxadaraya in si qaldan loo maamulo amaba dana gaar ah looga faa'iidaysto hantida ummadda, sidoo kale iyadoo la tix raacayo qodobka 43 faqradiisa 2 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qodobka 1 faqradiisa 1 xarafka ja iyo qodobka 50 faqradiisa 1 xarfaha ba iyo ta ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sharciga LR-17 ee 25 bishii 12 2019 iyo qodobka 8 ee sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee ah sharciga LR-34 ee 14 bisha 1972. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku wuxuu ilaalinayaa hantida dadweynaha. si kastaba tilaabadan uu qaaday xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxay ku soo aadaysaa xilli muranno badan ay ka dhasheen dhulka danta guud ee tiyaatarka qaranka oo wasiir Dubbo uu ka kireeyey ganacsato ayna soo baxeen xogo sheegaya in la iibiyey. hase yeeshee markii dambe uu ka hortegay tilaabadaasi ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. waxaa sidoo kale tani loo arkaa inay sii kordhinayso xiisadda ka dhex tulan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday oo dadaal xoogan ku bixinaya sidii uu heli lahaa dhaqaale uu ku galo ololaha doorashada, maadaama la fahansan yahay inuu yahay musharax u taagan mar kale qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. ugu dambeynna dowladda Imaaraadka Carabta ayaa mar kale qaaday tilaabo loo arko in ay Somaliland u aqoonsan tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale kadib markii ay dhawaan soo saartay liis ay ku xusan yihiin dalalka Imaaraadku dib ugu ogolaaday inay u safraan dalkiisa. Imaaraadka Carabta ayaa dib u bilaabay 30 bishii tagtay Agost 2021 bixinta fiisooyinka dadka dalalka kale ku nool ee raba inay u safraan amaba u dalxiisaan dalkaasi. waxaa ka soo dhex muuqday liiska Somaliland iyo Soomaaliya oo laba dal loo kala qaaday, waxaana tani ay tahay mid meel ka dhac ku ah madax bannaanida Soomaaliya. wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ee magaceeda loo soo gaabiyo WAM amaba WAM ayaa baahisay in shuruudaha laga rabo dadka u safraya Imaaraadka Carabta ay ka mid tahay in horey ay u qaataan talaalka difaaca amaba ka hortagga COVID-19. tilaabadan ay Imaaraadka Carabtu Somaliland ugu xuseen dalka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale waxay tahay mid si weyn hadalhayn uga abuurtay baraha bulshada, waxaana ay muujinaysaa sida Imaaraadka ay uga go'an tahay ku celcelinta ku xadgudubka madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkaad kala socoteen warqaad tube daawad haddaad ku cusub tahay channelkan ugu soo biir subscribe dhawr kuma kadibna fura gambaleelka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno tan iyo kulanti daba nabaday.